masjidul aqsa oo ku yaal deegaanka Lafoole xaafadda Buulakaashe ayaa maanta lagu qabtay xaflad lagu maamuusay dhalashada xabiibkan Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee masjidkan ayaa ka mid ah masaajidda hoostaga jamaacadu Sheekh Daad Culusow waxaana gacanta ku haya Sheekh Cabdullaahi Bidaaye. Xafladda ayaa waxaa ka soo qayb galay mashaayikh, maadixiin, ardayda masjidka wax ka barata iyo dadweyne fara badan. waxaana ugu horreyn munaasabadda lagu daafuray kalaamka Alle iyo amdax kala duwan oo lagu amaanaya xabiibkan Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لا يا رسول الله قلبي متيم بحسن بدا في وجهك المتلامع الله صلاة وتسليم الله وأزكى تحياتي على غير خلق الله والآل أجمعين. الله لا يا حبيب الله أنت اعتمادنا وأنت رجانا عند كل مراوعين. الله صلاة وتسليم الله وأزكى تحياتي الله على خير خلق الله والآل أجمعين. فهم ضربان كما همد وإلا فإنك في طريق لحبك هذه صلاة الله ما دارت واكب على حمد قي لمن ركب نجاة. amdaxda kadib ayay culimmadu soo jeediyeen muxaadaraad qiimo badan oo ka hadlaya axwaashii nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee. nabigeena calayhi salaatu wasalaam sida aad ogtihiin wuxuu ahay raxmad ilaahay uu noo soo diray, wuxuu ahay raxmad ilaahay caalamka oo dhan oo u soo diray, wuxuu ahay raxmad ilaahay uu noo soo hadiyeeyey, wuxuu ahay nicmo dhalashadiisuna waxay ahayd nicmo weyn oo yacni ilaahay oo nagu galadaystay ayay ahaaday. marka ilaahay subxaanahu wa tacaala nicmo uu ku siiyo, nicmada ilaahay uu ku siiyo waa laga abaalceliyaa, ilaahay yani waa lagu shukriyaa. nicamta ilaahay uuna siiyey wax la koobi kara ma aha, wa in tacuduu nicmat allaahi laa tuxsuuha. nicmooyinka ilaahay uuna siiyey aad iyo aad ay u fara badan yihiin, waxayna mudan yihiin nicmo kasta ilaahay uu ku siiyo inaad ku shukrisid. laakiin midda dhalashada nabiga calayhi salaatu wasalaam waa nicmooyinka nicmadii ugu weyneyd waaye. maxaa yeelay ilaahay markuu nagu galadaystay nabigeena calayhi salaatu wasalaam inuu soo saaro, haddana uu noo qadaray in aan ka mid noqono ummaddii rumaysay. ileen dad fara badan oo aad u fara badan ayaa jooga oo aan nabiga calayhi salaatu wasalaam rumaysnayn. casrigiisiina waa joogeen, maantana waa joogaan, waana tiro badan yihiin. marka annaga awooddeenna iyo ma ahayn, waxaa waaye ilaahay yaa noo dooray, nicmadaasna siiyey inaan nabiga calayhi salaatu wasalaam aan rumayno. marka nicmadaas weyninka badan oo dhalashada nabiga calayhi salaatu wasalaam oo sabab u aheeday in koonkan aan joogno ilaahay uu ka badbaadiyey ظلماتكي shirkiga iyo kufriga. ilaahayna intii uu qadaray uu bixiyay nuurka iyo iimaanka iyo hidaayada. إلهي وكم هذينا سبحانه وتعالى. فشكى أبو بكر وشكى بلال. سيدنا أبو بكر الصديق وشيغي
oo culays iyo qandha ayaa qabatay washaka bilaal siid bilaalna waa sheegayay falamaa ra'aa rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam shakwa asxaabi rasuulka ilaahay markuu arkay tiri sheegashada asxaabtiisa nabigeena wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam gacmihiisa ayuu kor u qaaday wuxuu yiri allaahumma xabib ilayna almadiina kamaa xababta makkata ow ashadda uru nabigeena calayhi salaatu wasalaam ilaahayow madiinana jeclaysii sida aad noo jeclaysiisay mako ama jecel ka dara xataa na jeclaysii markaasuu nabiga wuxuu yiri wasaxiixa ilaahayow madiina caafimaadku soo rag wabaarik lanaa fii saaciha wa muddiha ilaahayow noo barakeey madiina suuskeeda iyo mudkeeda waxawil xumaaha ila aljuxfa uru nabigeena calayhi salaatu wasalaam qandhadeedana waxaad u rartaa oo u guurisaa ilaahayow juxfa meesha la yidhaahdo halashe niman gaalaa joogaan waa la sheegay nabigeena calayhi salaatu wasalaam meeshaas ha loo raro yiri waa meesha ka mid ah hadda mawaaqiidda laga xarmado miiqaad mawaaqiidday ka mid tahay waa miiqaad oo min almawaaqiid ka mid ah oo laga xarmado xajka nabigeena wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam ilaahayow qandhada meeshaan taalo waxaad u rartaa juxfa ilaa hadda culimmadeena markay noo macnaheeyaan waa tan dhahaan markay macnaheeyaan laqbeeyaan juxfa markay soo hadal qaadaan ilma lays waa meel halaagsan oo baasan oo wabii'a waay baaski madiina yaali ee dhibkii yiili oo dhan ayaa loo raray maxaa yeelay nabigeena marba haddii oo tegey asigoo raxmad ah asigoo adduunka nicmo u ah iyo baas isqawamaayaan raxmad iyo dhib iyo cadaab isqawamaayaan saas darteeda dhibkii madiina yiili oo dhan waa la raray waxaana loo raray juxfa qataada ibnu nucmaan arrintii ku dhacda baa ka mid ahayd dagaalkii uxud waxaa dhacay dagaalka ayaa il looga soo riday oo soo raaracsataba qataada ibnu nucmaan iyo wax looga dhuftay kabacdi nabiga u yimid calayhi salaatu wasalaam oo wuxuu ku yidhi yaa rasuul allah inna lii imra'atan uxibuhaa ilaahay rasuulkiisiiyow islaanaa ii joogta waana jecela jacaylku waa soo jireen ma ogta hawaana jecelahay waxaana ka cabsaa inay innacdo itiraa ilmo qor oo macnaa kuma raba camal marka waxaa kaa rabaa ishi inaad mihi iigu celiso nabiga wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam laba mid dooro inaa isha in kaa masoxsidaada hore kuu noqoto iyo inay maqar ku ahaato janna maceey lagugu bedelo labadaas mid dooro wuxuu yidhi ikhtartu lithnayn yaa rasuul allah labadaba waa isku rabaa ishayda maa in lagugu celsho oo ma ogtahay quruxdaydii hore iisoo noqoto waa rabaa oo naagahaygu inacin qiyaamaha haddii la tagana barwaaqo inaa ku noolado janna macey aan gala waa rabaa maasha allah nabigu waa ku qosla calayhi salaatu wasalaam saadaam cabdulla siyaad annasiixatu diiniya magaalada muqdisho ma jeceshahay muddo kooban inaad ku barato barashada qur'aanka kariimka iyo hingaada carabiga ma doonaysaa inaad ku barato shareecada islaamka qaybaheeda kala duwan hab fudud oo casri ah waxaa intaas diyaar kula ah adiga oo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqada macadka barashada qur'aanka kariimka ah iyo culuumta sharciga ee nuurul huda ka faa'iideyso oo ka mid noqo bahda macadka nuurul huda kala xiriir wixii faahfaahin ah ciwaanada shaashada idinkaga muuqda